deeqdan oo isugu jirtay raashin dhowr nooc ka kooban 5 neef oo geel ah iyo dhar loogu talagalay in ay ku ciidaan maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ayaa maanta hay'adda Hormuud waxay gaarsiisay xabsiga dhexe Xamar oo ay ku xiran yihiin dad siyaabo kala duwan ugu xukuman. hay'addu waxa ay deeqdaasi ku wareejisay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Sareey Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashir Goobe. madaxa hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan ayaa sheegay in fadliga bisha Ramadaan awgeed ay hay'addu qorsheysay in ay taakuleeso dadka danta yar ee masaakiinta oo aanan awoodin helida waxay ku afuraan. maanta waxaan joognaa xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho aniga oo ah madaxa Hormuud Foundation oo ka socda shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxaan halkan soo gaarsiinay deeq aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan inay ku afuraan maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho taasoo macnaha barnaamij ama deeq aan soo gaarsiin jirnay bil kasta oo Ramadaan sanad kasta ayadoo kaalmada ay taageeritaanka aan taageerno xabsiga dhexe aanay ahayn mid ku xiran markasta marxalad ama bil ama xilli gooni ah hase ahaatee ay ahayd arrin taagan mataqaana bil kasta oo Ramadaan markii la gaaro inaan soo gaarsiino deeq isugu jirta raashin ka noocyadiisa kala duwan si ay u kaalmeystaan bisha barakeysan ee Ramadaan insha Allah ta'ala maanta deeqdan aan soo gaarsiinay xabsiga dhexe ee ka timid shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom waxa ay ka kooban tahay bariis waa 100 loor sokor 100 loor bur 100 loor saliid wax lagu kariyo waa 1 litir caleenta shaaha waa 5 jawaan ama 5 juuri cabitaanka fosterka la yiraahdo waa 10 kartoon timirta waa 4,000 oo kiilo sidoo kale waxaan aan ku wareejinaynaa geel 5 neef oo geel ah oo nooc loo yaqaan birimada ama ka ugu sareeya sidoo kale maxaabiista hadda xabsiga ku jirta oo tiradoodu ay inta haatan ku jirto ayadana dhammaan waxaan u keenay dharkii ay ku ciidi lahaayeen. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Sareey Guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa hay'adda ugu mahadceliyay gurmadka deeq oo ay soo gaarsiiyeen. sharaf bay noo tahay maanta inaan idinka gudoono deeqdan mudane Cabdullaahi waxaan u sheegayaa saxaafadda iyo bulshada Soomaaliyeedba shirkad hay'adda khayriyadda ee muxuu ahaa Hormuud ama Hormuud Foundation inaysan ahayn markii ugu horeysay oo dadka masaakiinta ah ee xabsiyada ku jira ay yani musaacido noocaan oo kala u fidiso runtiina wax ku xiran ma aha Ramadaan kaliya ayadoon Ramadaan ah iyo ayadoon Ramadaan ahaynba markasta su'aashii ama codsiga aan u gudbino way ka soo jawaabaan waxayna ka geystaan wax alaali wixii markaas ay ka sameyn karaan waxaan leenahay ilaahay meeshii ka soo saareen muxuu ahaa wax ka badan oo ka khayr badan ilaahay ugu bedelo. sidoo kale hay'adda ayaa 400 oo kiilo oo timir ah iyo 5,000 oo dollar waxa ay gaarsiiyeen isbitaalka Martini oo ay ku nool yihiin qoysaska ciidankii u naafoway difaaca qaranka ee 77. Cabdullaahi Nuur Shooriye gudoomiyaha ciidanka naafada oo deeqdaasi ka gudoomiyay hay'adda Hormuud Foundation ayaa ka mahadceliyay waxana uu sheegay in ay ku su'aad xilli ay baahi weyn u qabeen. waxaan noo keenay Hormuud sanadkiiba way noo keentay Ramadaan kasta waxa aan rajaynay kamid yihiin ilaahay baa iskale sharafkaas iyo mahaddaas annagu naafadiisa 77 qayb yar oo ka hartaanahay meeshaan degannahay baahidu waa iska jirtaa laakiin Hormuud waa niman aan ku tashano una duceyno oo aan dalka ku leenahay waxaan idin rajaynaynaa ilaahay sanadkiisa inuu caafimaad iyo nabadgelyo nagu gaarsiiyo annaguna wixii aad ii dhibteen aniguna waa idinka guddoon waxaad ii dhibteen waana gaarsiin doonaa cidda igu dhibteen haddii Allah waxa waa 5,000 oo dollar oo kaash ah iyo timir 400 oo kiilo ah. Hajradu Qaadir telefishinka RTN Muqdisho.